بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا كورسين كوساب سنيد فيسبوك أديس كورس أما فيسبوك ماركتين تلابد كواد ينقاد دونا تلابد كواد وحن أبوري دونا فيسبوك بيج مركو هراء وإناد أبورت فيسبوك بيج وحقادنا تلابد كواد وعن ربنا إنكو أبورنا فيسبوك بيج تلابد كواد وحن سمين دونا فيسبوك بيج ayaa abuuri doonaa si aan u abuurno facebook page marka ugu horeyso waxaan tagi doonaa halka ay ku qoran tahay marka adigu uu ku dhex jira facebook account-kaaga caadiga ah ayaa waxaad tagaysaa halka ay ku qoran tahay pages kadib waxaad dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay create new page kadib halkaas ayaa waxaad ku qori doontaa magaca aad rabto inaad u sameyso mar kale haddii aan ku celiyo oo qaab kale aan usoo galo waxaa ka dhigi kartaa marka ugu horeyso adiga oo jooga account-kaada facebook caadiga ayaa waxaad tagaysaa sagaalkaas dhibcood ee isdul saaran ayaad kali ku siinaysaa kadib waxaad ka dooranaysaa halka ay ku qoran tahay page halkii hadda ayaa noo soo bixi doona waxaa ku qoraynaa magaca aan rabno inaan page-ka facebook u sameyno ama businesskeena ama ganacsigeena kadib waxaan awood u leenahay inaan sameyno oo aan qaadno tallaabooyinka kale halkaas ayaa waxaan ku qoraynaa magaca aan rabno inaan sameyno waxaan leenahay saada online shop oo kaleeto marka aan magacaas ku qorno halkan wuxuu inoo ogol yahay magacyada aan ku qorayno oo dhan inay wada small ahaadaan sidoo kaleeto qaybta ugu horeyso inay capital noqoto inta ka dambeysana ay small noqoto marka haddii wada capital ka dhigto kaasoo diidi doonaa sidoo kaleeto category-ga doorta ayaa nala yiri category-ga waxaan leenahay category-ga shopping ayaan dooranaynaa waxaan leenahay shopping oo kaleeto shopping service ama shopping center aan leenahay marka waxaan leenahay shopping center waa inoo doorto qaybta kale halkan waxaa waaye meel loogu talagalay inaad ku qorto faahfaahin gaaban oo ku saabsan businesskaada ama ganacsigaada faahfaahinta markaa halkan ku qoran wuxuu kasoo muuqan doonaa pagekaada hoostiisa si qofka marka uu soo booqdo pagekaada uu u ogaado waxaad iibiso marka halkaas waxaa ku qoraynaa waxaa iibinaa waxaan iibinaa shopping tayo leh waxaan iibinaa shopping tayo leh ayaa ku qornay markaa intaan ku qorno hadda facebook pagekeeni inaan sameyno automatic waa inoo ogolaanaya markaan waxaan dhihi doonaa create page kahor intaan create waxaan rabaa halkan inaan ku fahansiiyo halkan marka aad computer ka isticmaalayso ama aad computer ka abuurayso pagekaada sidan ayuu u ekaan doonaa sidoo kaleeto marka aad ku dhufato qaybta mobilekana sidan ayuu u ekaan doonaa sidoo kale pagekaada marka aad abuurayso ma haysto wax flowers ah ama wax page markaas like ah automatic marka aad abuurto kadib ayay dadkii markaasi aad rabtay aad ku soo darsan doontaa ama aad ku invite gareyn doontaa si ay pagekaada like iyo flow soo saaraan marka waxaan abuuraynaa facebook pagekii oo waxaan leenahay keliya create facebook page waayahay markaan shaqadii ayuu ku guda jiraa wuxuu noo abuurayaa account-keeni facebook pageka ee aan ugu talagalnay in aan practice ku sameyno markuu casharka dhammaadana waxaa lagaaga baahan yahay oo casharka koowaad daawato in aad soo sameyso qaybtan oo kale haddii ay ku suuragalayso in aad soo duubto inoo soo duub haddii aysan kuu suuragalayna facebook pageka soo abuur kadib sawir inooga soo qaad inoo soo dir insha allah marka qaybta koowaad waa abuurnay qaybtan waxaan buuxi doonaa informationka ama xogta ku saabsan waxa loo yaqaano facebook pagekeena xogtii ku saabsaneed balse tilaabadan dib ayaa u dhigan doonaa oo waxaa leenahay iska kansaleynaa go to page marka aan pageka tagno kadib waxaan tagi doonaa pagekii aan hadda abuurnay ee ahaa saada shopping ama saada shop kadib pagekeena sidan ayuu u ekaan doonaa pageka aan abuurnay sidan ayuu u ekaan doonaa marka pagekeena hadda ma haysto waxa loo yaqaano cover page oo soo jiidasho leh sidoo kale ma lahan waxa loo yaqaano logo pageka uu leeyahay ama businesskeena uu leeyahay marka stepka labaad ayaan ku qaadan doonaa sidaan u abuuri lahayn cover page iyo logo si aan u saarano facebook pagekeena aan hadda abuurnay stepkii koowaad waxaan kusoo baranay sida loo sameeyo facebook page stepkan waxaan ku baran doonaa sida aan u sameyn lahayn logo iyo cover page oo aan saari doono pagekeeni saada online shop kadib waxa uu noqon doonaa pagekeeni mid qurux badan oo marka ay dadka soo booqdaan ay ka heli doonaan
kadibna waxaan ka iibi doonaa adeegii badeecooyinka markaasi aan halkaas kusoo bandhigno. Marka ugu horeysa aan rabno inaan sameyno logo, waxaan tagaynaa website magaciisa la yiraahdo canva.com. hore ayaan u qoray canva ayaa leedahay canva ayaa ku dhufanaysaa. websitekaas wuxuu ku saamaxayaa ama kuu fududeynaya inaad samaysan karto page, Facebook page ama wax loo yaqaano logo iyo wixii aad rabto. marka waxaa halkaas ku dhufanaynaa, waxaa ka dooranaynaa meeshay ku qoran tahay design spotlight, waxaa ka dooranaynaa logo maker. markaan ku dhufano kadib waxaan leenahay start design custom logo. kadib waxaan dhalasiinayaa halka ay ku qoran tahay in aan helno logooyin diyaarsan oo ku saabsan wax markaas anaga aan xiiseynayno. tusaale ahaan halkan logooyin ku diyaarsan, marka waxaan iska soo qaadanaynaa hal logo, kadib magaca ka bedeli doonaa. tusaale ahaan logada noo soo qaad, logadaasoo kale aan soo qaadanay, maadaama waxaynu shoobin yihiin, kan aan kala kormarina, kana xoogaa qurux badan, halkaas gey, kan soo qabo halkan keen, marka halkan magaca nooga bedel, magaceena noogu qor Saada Online. halkaas ka qabane waa riixe, kadib inta ka qabo soo jiid. halkaas marka waxay noogu qormay magacii aan rabnay Saada Online. kanna magac kale aan ku qoranno, waxaa ku qoranaynaa tusaale ahaan shopping center aan ku qoranaynaa shopping center. kadib isagiina halkaas ka qabo riix, halkan ka qabo soo jiid. marka halkaas waxaa inoogu qormay Saada Online shopping center. waa iyadana shaqadeeda waa shopping center. marka hadda waxaa inoo fududaaday oo aan si fudud u samaysanay logo aan ugu talagalnay inaan saarano pagekeena Facebooka. marka waxaan rabnaa logadan aan sameynay hadda, kan haddaan rabno waa kaasa, haddaan rabno inaan kalar ka bedelno, kalarka waa ka bedeli karnaa oo kalarkaa rabnaa saari karnaa. marka kalarkaa rabno ayaa saari karnaa. haddaan rabno logada laftirkeeda inaan kalar ka bedelno ama magaca aan kalar ka bedelno, kalarkaa rabnaa saari karnaa. marka sidaas ayaan ku daynaynaa oo ah Saada Online shopping. barnaamijkan aan wax ku edit garayna waxaa loo yaqaana Canva. sidaan kuu soo sheegay, haddii aad rabto Canva sida loogu diyaariyo ama design loogu qurux badan loogu sameeyo, waxaad boqon kartaa pagekeena YouTube-ka. halkaas ayaad ku qoraysaa Canva, waxaad ka helaysaa sida aad Canva wax ugu diyaarsan karto. marka kadib logadii aad sameynay ayaa save garaynaynaa, file ayaan tagaynaa, kadib waxaa ku dhufanaynaa halkay ku qoran tahay download. kadib waxaan leenahay download. markan wuxuu inoo soo dejinayaa logadii aan samaysanay ee ku saabsanayd wax loo yaqaano Facebook page. marka logadii waa inoo soo dejiyay, halkaas ayaa inoo taalaa logadii aan samaysanay waa tanaa. halkaanaan ku dhufanaynaa, waxaan dhiganaynaa, waxaan ku save garaysanaynaa desktopka ayaa ku save garaysanaynaa. kadib halkaas ayaa ka soo qaadan doonaa. waayahay, marka maadaama aan samaysanay logadii, waxaan rabnaa in Facebook pageka aan sameynay aan looga saarno. marka Facebook pageka ayaa tagaynaa, kadib calaamadda kamerada ay ku qoran tahay ayaa keli ku siinaynaa. kadib waxaan leenahay upload photo ayaa soo upload garaynaa ama sawir soo gelinaynaa. kadib waxaan ku dhufanaynaa desktopka, aniga desktopka ii taalaa logadii halkaas waatsa. kadib logadii kusoo dhufanaa, kadib waxaan leeyahay open, logadii open soo leeyahay. kadib logadii waa tana. haddii marka logadii ay fit ku tahay ama isku cabir ay yihiin, meesha siday u muuqanayso waa kaas. haddii kaleetana halkaasaa ka qabanaya, waa soo weyneynaya. okay, marka waa soo weyneynayna, aniga halkaasa keenayna ilaa ay ka muuqato. waa kaas logadeena, halkaas ayaan geynay, centerka noo gey. kadib waxaa leenahay safe. markan waxaan awood u yeelanay in aan qaadno tallaabadii labaad oo ahayd in aan pagekeenii Facebook ahaa aan u soo sameynay logo ayaa usoo sameynay. markaan tallaabada xigta waxaan rabnaa inaan usoo sameyno wax loo yaqaano cover page. si aan cover page ugu soo sameyno, waxaa ku laabanaynaa websitekii Canva. kadib waxaa ku dhufanaynaa meesha ay ku qoran tahay home, oo isla anagoo websiteka ku jirno waxaan rabnaa inaan sameyno cover page ama Facebook cover page. marka halkaas searchinka waxaa ku qoraynaa Facebook cover page ayaa ku qoraynaa. Facebook markaa qorno asaga cover page iska soo raacsanayo. marka Facebook covers
ayaa ku dhufanaynaa Facebook covers ama Facebook cover page ayaa ku dhufanaynaa. kadib waxaa helaynaa cover page ku saabsan businesska ama online shoppingka ama wax walba. marka hal mid ayaa iska soo qaadanayna, waxaan oo dhan waa business cover page. marka waxaa iska soo qaadanaynaa kanoo kale ayaa soo qaadanaynaa. marka aan soo qaadano kadib magaceena ayaa halkaas ku qoranaynaa, loogadii ayaa ka bedelanaynaa, loogadeena ayaa soo saaran doonaa sidoo kaleeto cover page-ka. kadib magaci ayaa ka bedelan doonaa. marka ugu horeyso halkaas ayaa waxaa ku dhufanaynaa heelaad gareynaynaa. kadib waxaa ku qoraynaa magaceeni Saada online, Saada online ayaa ku qoraynaa. marka aan ku qorno waa weyneynaya, halkaas qabo soo weyney. marka halkan waxaan ugu qoraynaa iyadana shopping center oo kaleeto, shopping center iyadana halkaas ka qabo yareey, kadib inta ka qabo soo dheereey si uu u noqdo qurux badan. kadib waxaa sameynaynaa loogadii ayaa bedelaynaa, kilkasi remove ama delete iska dheh, qoraalkan ku dhufo delete iska dheh isagana. halkan ayaa waxaan rabnaa inaan soo gelino loogadii anaga aan sameysanay ee noo taalay desktopka computerkeena. halkaas ayaa ku dhufanayna ay ku qoran tahay uploads, upload. kadib waxaa ku dhufanayna ay ku qoran tahay upload file, meeshay ku qoran tahay upload file. kadib waxaa soo dooranaynaa loogadeeni aan soo diyaarsanay, kili ku sii Saada online logo, kadib kusoo dhufo, halkaas ayay soo geli doontaa. markaad halkaas soo gasho kadib ayaa kili ku siinaynaa, halkaas ayay noo soo gashay loogadeeni. waatana loogadii ay ku qorneed Saada online shop. marka si aad ujeedo loogadoona waxay wadataa wax loo yaqaano background cadaan ah. marka waxaan rabnaa in aan iska tirno backgroundka cadaanka aan ka soo jarno. si aan backgroundka cadaanka ka soo jarno waxaan tagaynaa google-ka, waxaan ku qoraynaa remove background ama remove background. markaad tiraahid website-kaasaan tagaynaa, kadib waxaan leenahay upload image, image soo geli ayuuna yiri. kadib waxaan ku dhufanaynaa upload image, imageka soo gelinaynaa ama sawirka. loogadeena ayaa kili ku siinaynaa, waa soo gelinaynaa. website-kan wuxuu noo fududeynayaa in uu backgroundka ka soo jaro loogadeenii, kadibna ay noqoto mid nadiif ah oo aan wax background lahayn, meel walba la geeyana ay ka soo muuqan karto. kadib download ayaa leenahay, halkaas ayay noo tagtay iyaduna. waatana loogadeeni oo aan lahayn wax background ah. kili ku sii noo save garay. marka waxaa noogu save garaysaa desktopka noogu save garay. kadib loogadii waxaa ka soo jarnay waxa la yiraahdo cover backgroundka ayaa ka soo jarnay. marka waxaan ku laabanaynaa qaybtii designinka, waxaan tagaynaa cover page-kii aan rabnay inaan wax ka bedelno. kadib waxaan ku dhufanaynaa si aan loogadii oo cover la-aanteed usoo gelino upload file ayaa leenahay. kadib waxaan soo gelinaynaa loogadii oo ah cover waxa la yiraahdo background la-aan ah. halkaas kili ku sii loogadii waatana soo geli open. halkan markay timaado kadib kili kusoo sii, waatana loogadeeni. inkastoo magacan shoppingka wuxuuga qarsan yahay, haddana loogadeeni waa inoo saaran tahay, waa tasaa waa inoo qurux badan tahay. marka halkaas kalarkaas kale hadaad iska bedeshid, maadaama kalarkii madow ah iyo tanoo madow ay isku soo aadeen. marka qaybtan join us halkaas faahfaahin yaraa ku qoranaya adiga aad leedahay, telephone numberkaada halkaas ku qoranaysaa, website haddii aad leedahay halkaas ku qoranaysaa, iyo sawirkaada ama barnaamij ama sawir ka turjumayo. sawirkan oo kale markaan rabin inaan bedelno waxaa ku dhufanaynaa sawirka ku dhufanaynaa daleydaas ka leenahay. sawirka maa daleydaa mise frameka daleydaa, sawirka keliya naga daleydaa leenahay. sawir ayaan soo gashanaynaa, waxaan leenahay halkaas elements ku dhufa, halkaas waxaan ku qoranaynaa marka shop ama shopping, shopping noogu qoro elementyada shopping. halkaasaan ku dhufanaynaa shopping. marka uu element ama sawir inoo soo bandhigo, sawirka halkaa inooga soo baxay rabnaa halkaa inaan geysano. okay, sawirada qaar waxaa waaye lacagaa dul saaran waa xiran yihiin, brog ku qoran yihiin. marka hal sawiroo lacag la-aan raadinaynaa oo aan wax lacaga ku xirnayn. marka inkastoo kulligood ay wada xiran yihiin, haddana waxaa iska dooranaynaa kan oo kale aan iska dooranaynaa, wax lacaga kuma xirno. marka kan oo kale iska dooranaynaa. wuxuu noqoy kan muuqaal waa naga tir, muuqaal lama saari karo.
marka waxaan saaranaynaa oo kale inta sawir fiican waa ka weynay kulli lacagaa ku wada xiran marka no problem ka noo qaat okay noo qaad halkaas noo geey marka halkan waxaan kusoo gabagabeynay inaan sameyno pageki cover pagekii ku saabsanaa noo save garay file dheh kadib waxaad tidhahdaa download sidoo kale u save garaynayna isagana marka aan save garayno kadib waxaan soo saari doonaa pagekeenii facebooka ahaa waayahay hadda waa inoo soo degay markuu soo dego halkaas keli ku sii soo fur halkaas saddexdaas dhibcood tag noo save garay desktopka noogu save garay meeshaa rabtaa ku save garaysan kartaa kadib markaad desktopka noogu save garayso waxaana geysaa pagekeenii facebookaana geey kadib meesha ay ku qoran tahay halkan oo ku qoran tahay add cover page ama cover photo ayaa kale ku siinaynaa kadib waxaan leenahay upload photo sawirkii aan rabnaa hadda aan sameynay inaan soo gelino sawirkii waa kanaa ama cover pagekii aan sameynay waa kaasa open ayaa leenahay oo inoo soo galaya markaan cover pageka oo aan u sameynay pagekeenii facebooka saada online shopping ayaan markaan soo gelinay automatic ayuu inoogu soo galay markaan pagekeena sida uu qurux badnaado waa dareemi kartaa oo wuxuu u leeyahay logo iyo weliba cover page kadib waxaa leenahay save changes okay markaan guud ahaan waxaan soo gabagabeynay cashirkii ama stepkii labaad ee ku saabsanaa inaan sameynay logo inaan sameynay cover page iyo in aan pagekeena facebooka ahaa aan ka bedelnay cover pageka aan u sameynay aan soo gelinay sidoo kaleeto loogadii aan u sameynay inaan soo gelinay marka stepkii saddexaad insha allah fadlan haddii aad janal ku cusub tahay subscribe dheh oo la wadaag asxaabtaada aad baad umahadsan tahay soo dhawaada